بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إلهي سبحانه وتعالى هنغا أقبل خيرك أن كجرنا أو صونك إن شاء الله تعالى. وحن اسكدي دورنا مالين كستبا إن وحير كتدبرنه قرآنك إلهي سبحانه وتعالى جزء لا أخريه تراويح لا أخريه إن كتدبرنا إلهي سبحانه وتعالى كلام كيسة. أفلا تدبرون القرآن على قلوب أقفالها أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مركا قرآنك وحيابها لو سدجوا إن لو عمل فلوية قرآنك صام وأخرينه أخرس كيسة وإن أنو بدنا تلاوة أنو بدنا حفظ كيسة أنو بدنا إنتاسنا وحاسيدر إن نفهنوه معاني ديسة. haddaanu fahmi weyno waxa qur-aanka uu noo sheegayo iyo waxuu nagala hadlayo dhib badan baa nagu dhacayo, wax badanna waa naga hoos baxayaan. ilaahi subxana wa tacaala suurat alfaatixa waa alfaatixatu lkitaab umu lkitaab shaafiya ayaa loo yaqaanaa. waa suurad min acdami suwar ah, suuradda aan akhrino markastaba salaada markaan ku jirno. hal aayad baan kasoo qaadanaynaa, ihdina asiraata almustaqiim. ilaahi subxaana wa tacaala salaad kastaba waxaan ilaahay ka barnaa allow jidka toosan nagu hanuuni. marka jidka toosan in aan ku hanuuno, jidka toosan in markasta aan isku dayno inaan ku hanuuno waa matlab loo baahan yahay maalin kasta qofka bini aadanka inuu ku dadaalo. wa fii ramadaani ashad, ramadaanka markaan galno kasii xoog badnaanaysaayo markasta waa inaan ihdina asiraata almustaqiim. salaadeena markaan ku jirno, markaan salaada ka baxno, ilaahu saa ramadaanka ii toosisay oo iga saartay dunuubta iyo waxyaabaha igu jiro iyo waxyaabaha kale, ilaahu jidka toosan igu hay, ilaahu bacda ramadaanna jidka toosan igu hay. ilaahay subxana wa tacaala ka bari ihdina asiraata almustaqiim. suurat albaqara markaad imaado ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku fura alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin. wax shaki ah ma jira kitaabkan. qof kastoo kutub qora ama waxa way wax qoraal qora wuxuu yiraahdaa hadii wixii khalad ahay la soo xariiro, wixii khalad ama saan u dhacayo nafteeda ka ahaatay. laakiin kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala la rayba fi, wax shaki ah ma jiraan. shaki yuusan ku galin kuwa shaki galiya kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala iyo sunnada saxiixa ah ka mid noqon kuwaas baatil bay ku sugan yihiin. kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala la rayba fi hudan lilmuttaqiin. hanuunki baa la soo celiyay kuwa muttaqiintu alla ka baqada hanuun buu yahay. ilaahay wuxuu ka hadlay alladheena yu'minuuna bilghaybi wa yuqiimuuna as-salaah wa mimma razaqnaahum yunfiquun. wa mu'miniinta sifaadkooda ayaa laga hadlay. qaybkay aaminsan yihiin, waxbay bixiyaan, khayrkay ku dadaalaan, waa kuwa waxa ilaahay subxaana wa tacaala u barxtira cibaadada. haddana waxaa laga hadlay kuwa kufaarta سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. كواس وحوى أوريدي إلهي سبحانه وتعالى قلوبته واحرة وكفار لا يؤمنون بالله ولا برسوله وحدينا ما هيستان إلهي مروا ما ينسون ورسولك مروا ما ينسون كوا وكفار. كذب إلهي وحوكها الله كوا منافقين تأه يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صلاة waxay u tukanayaan caadi ka tahay oo yaa lagu oran hebel waa taariku salaah, laakiin haday u istaagaan salaada qaamu kusala waxay istaagaan ayagoo caajis ah, ma dareensano quraanka ilaahi subhanahu wa ta'ala, ma dareensano salaada. waxay u wasan caado, waxa laga yaabaa qofka inuu taraawiix yimaado oo israado tuko, laakiin waxa uu tukanayo qalbigiisa iyo wanaagiisa inuusan joogin ba, taasna waa aad bay khasaaro u tahay. qofka mu'minka waxa lagu gartaa uu khushuuca markuu salaada tukanayo. mu'minka wuu khushuuca, ama kaafir ama munaafiqa asaga wax uu danka ka leeyahay malaha. munaafiqu waxa uu leeyahay salaada hal mar laga dhameeyo weeye, salaadoodana dhabka ma ahano, waayo iimaankooda dhabka ma aha. ilaahay inta markuu ka hadlay توحيد كهل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. قرآن نحن مدل استيقظنا، لكن تأملات إلهي وحكاها الله الدون كسو وقبلي يوناجيس يا أسرك لي إلا عابد. يا أيها الناس ضلوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم. حدوا عبود سم وحيابها كله إلهي إذا أبور تعبد السجا إذا أبوري. إلهي سبحانه وتعالى كذبنا وحكاها الآيات كحيل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات
saddexaad u bishaaray. kadibna waxa way Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka hadlay qisadii nabi aadam alayhi salaam. waxaan quraanku wuxuu ku leeyahay hadii aad isweydiiso war anigu xageen ka imi, anigu bini aadan ahaan asalkaygu waa intee, asalkaada lagaga warmaya. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إلهي سبحانه وتعالى ملائكته wuxuu ku yiri anigu waxaan yeeli ardada dhaxdeeda khalifa mid khaliif ah oo dhaxla oo waxa way ardada waxa way xukuma oo Allah subhanahu wa ta'ala awood siiyay. wati malaa'iktu ay yiraahdeen maxaa u sameynaysa Allah, wati Ilaahay u jawaabay waad garanaysaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri malaa'iktii u sujuuda, waa sujuudeen, shaydaan baa diiday. Ilaahay wuxuu ku yiri aadan ya Hawa jannadiina gala oo ku jira oo waxa weeye damaashaada iska ilaaliya geedka iska ilaaliya. shaydaankana yuusan idigu waxa weeye yuusan idigu kadinin oo shaydaanka yuusan geedkan idigu qasbina cuntaan. iska ilaaliya shaydaanka, cadowgiina way iska ilaaliya. maxaa dhacay laakiin shaydaankii ayaa dufsaday aadam iyo Hawa. waa inaan ogaanaa marka anagu cadow kala leenahay, nafteena waa cadow, dadkana ugu hareersan oo saaxiibka xun waa cadow. nafteena waa cadow, saaxiibka xun waa cadow, waayo wuxuu ka saarayaa jidka tasabbu ka saarayaa. suuratul furqaan baa insha Allah ta'ala ku sheegi doona. waxa sidoo kale cadow ah naftaada, ma ubari'u nafsi. suuratu yusuf baan ku arki doonaa in nafsa la amaaratu bisu. laakiin shaydaan baa jiro. shaydaankan dhowr meel buu ka soo galaa. waxyaabo dadku ka soo galo waxa kamid ah carada. qofka inuu ka caraysiiyo markaad carootana wax kale ma kala ogid. mid labaad shahwada, waxyaabaha aad jeceshahay iyo meelaha aad u badan tahay iyo meelaha aad u jilicsan tahay ayuu ka soo galayaa. shahwadu ka soo galayaa. meesha saddexaad ka soo galana waxa weeye oo shaydaanka uu waxa weeye marka laga tago shahwada iyo waxa weeye uu ka tago waxa weeye carada, marka laga tago waxa weeye qaflada. qofka inuu iska noolaado uu iska joogo waxa way in la iska ilaaliyo loo baahan yahay. marka sidaa daraadeed walaalayaal quraanka inaan ku tadabburno u baahannahay. ilaahina subhanahu wa ta'ala wuxuu u soo dejiyay inaan ku tadabburno dadka waxa weeye aanu meelaha amarayno inaan iska ilaalino shaydaanka. in gabadha fitanteeda ay soo saarin meelaha waxa weeye la isku yimaado baraha bulshada ay soo dhigin. gabadha inay xishooto, wiilkana sidoo kale indhihiisa inuu laabo. anaguna inaan dadaannaa loo baahan yahay. marka hor u socono suuradu reer bani Israa'iil bay ka hadlaysaa. aayadaha kamid waxa kamid ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. ma waxaad birriga iyo wanaaga dadka fareysaan hadana idinkoo quraanka akhrinayo wa tansawna anfusakum, idinka ishilmaamayo bir ay dadka wanaaga fareysaan. waxa leedahay tukada khayrka sameeya, hadana idinkiiba waxa weeye xumaanta dadkii markay idin jeedin kaligi aan noqotaan idinka xagga kale ka sameeynayo. taa marka ma banaano. wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. jiska markuu sii dhamaanayo qisada waxaan soo qaadanaynaa nabi aadam. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. النبي إبراهيم عليه السلام تضحية أسمية خليل الرحمن وحيابها أسمية وحوي وحكست إنه كان تنازلي وحكست إنه كتغي إلهي درتي أيا لو وحوي لو حمي إلهي درتي أيا لو إري إلهي درتي بأيا لبضن ودعي أيا قد لو تريقاري. مع ذلك النبي النبي إبراهيم عليه السلام انت صدموا وصبرين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بيتك الله دسayaan hadana waxa leeyahay Allah naga aqbal. anaguna ramadaanka dhaxdiisa anagu tukanayno oo salaadeeno oo infaaqa ku dadaalayno oo wax kasta ku dadaalayno ayaa hadana waxaan leenahay Allah noo dambi dhaaf, Allah naga aqbal. ilaahay waxaan ka baryaynaa dhamaanteena inuu naga aqbalo amalka wanaagsan. aad ba u mahadsantihiin. wajazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum.